saxaafadeed ay soo saareen waxay si kulul ugu cambaareeyeen waxa ay ku tilmaameen arrin qalada oo lagu sameeyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Professor Maxamed Cumar Dalxa iyagoo ku eedeeyay qaladkaasina inay sameeyeen saraakiil ka tirsan madaxtooyada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo safaaradda Soomaalidu ay ku leedahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddaba war-saxaafadeedkan oo laga soo saaray waddanka Mareykanka una akhrinayo afayeenka jaaliyadahaasi Sheekh Nuur Abukar Qaasin ayaa nuqul kamid ah waxa uu soo gaaray xarunta telefishinka Universal sidan ayuuna war-saxaafadeedku ahaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. magacayga waxa la yiraahdaa Sheekh Nuur Abukar Qaasin. waxaan rabaa inaan xoogaa idin la wadaago war-saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen ururka la yiraahdo SSU Southern Somali Union iyo Banadiri Association North America. waxay aad uga doodeen dhacdooyin ayaamahan ku soo cusboonaaday wadanka waxayna press release-kooda xalay ku soo saareen ugu talagaleen inay u qaybiyaan meediyaha gudaha iyo tan dibaddaba. press release-kaasi waxaa ku saxiixnaa Dr. Ali Said Fiqi oo ah political advisor ururka SSU iyo Mr. Mudane Salim Macow oo asagana ah gudoomiyaha ururka Banadiriga ee North America. ayaamahan dambe waxaa bilowday olole la rabo in lagu xumeeyo sharafta madaxda dawladda qaarkood. arrimahaas oo qoomiyad ahaan si gaar ah noo taabanayso waxaa ugu dambeeyay dhacdadii shalay in gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka Soomaaliya mudane Professor Maxamed Cumar Dalxa loo diiday inuu wax ka soo dhaweeyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Sheekh Shariif taasoo meel ka dhac weyn ku ah mudnaanta iyo kala dambeynta dawladnimo waxayna abuuri kartaa inuu shaki weyn galo dadweynaha taageersan dawladda. taas waxaa ka sii horeysay wasiirka maaliyadda mudane Sheekh Shariif Sheekh Xasan oo ku dhiiraday in hay'ad caalami ah ay maamusho dhaqaalaha Soomaaliya loogu talagalay asagoo ka hortagayo ku takrifalada maaliyadeed oo hore loo caadeystay. taas waxay u keentay in magacyo aanan qurux badnayn loogu magac daro oo loo bixiyo naanayso ay ayaamahani ku soo baxayaan website-yada qaarkood. arrimahaasi marka aan isku soo duubno waxaa muujinaysaa inuu socdo olole lagu xumeynayo madaxda dawladda ee ka soo jeedo gobolada qowmiyadeena. marka tii ugu dambeysay ee shalay dhacday falxumadii shalay ka dhacday dalka Kenya markii gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka oo markaasi joogay Kenya Nairobi oo constitution-kana charterka dawladana oranayo waa ninka afraad iyo saddexaad ma garanayo constitution-ka Soomaaliya u yaalo in laga hor istaagay inuu raaco gaadiidkii loogu talagalay soo dhaweyntii madaxweynaha maaragtay Soomaaliya kadibna uu iskiis taxi u qaato markuu meesha tagayna laga hor istaagay in uu madaxweynihii arko ama la soo dhaweeyaba. waa tahay daawada